garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ayaa maanta xiran kadib warqad xalay ka soo baxday gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan kaasi oo 4 maalin laga xiray dhammaan diyaaradihii shacabka ee ka soo degay garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa. gudoomiye Jeyti ayaa sheegay in laga bilaabo 24 bishan ilaa 28 bisha ay xiran yihiin dhammaan diyaaradihii shacabka ee ka soo degay garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa. sidoo kale waxaa loo fasaxay muddada 4 maalin diyaaradaha admis kuwa samafalka iyo kuwa qaadka. wakiilada diyaaradaha shacabka ee fadhigoodu yahay magaalada Beledweyne ayaa nasiib darro ku tilmaamay xayiraadda la saaray diyaaradihii shacabka muddada 4 cisho waxaana ay sheegeen in ciidamada admis ee gacanta ku haya garoonka ay ku wargelinayaan in aysan damaanad qaadi karin diyaaradaha shacabka maadaama garoonka banaankiisa ay ciidamo hubeysan joogaan. gudoomiye xilka laga qaaday Cali Jeyti Cismaan ayaa sheegay dhowr maalin ka hor in aysan diyaaradaha shacabka ee Beledweyne u soo safraya aysan soo qaadi karin mas'uul ka tirsan Hirshabeelle. dhinaca kale wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka Hirshabeelle ayaa xalay soo saartay warqad lagu amrayo in garoonka ay ka degaan diyaaradaha shacabka laakiin amarkaasi ma dhaqan gelin maanta. xiisada ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. dadaalo kala duwan ayaa jiray toddobaadkii la soo dhaafay kuwaas oo ay garwadeen ka ahaayeen odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo la doonayay in lagu soo afjaro xiisada balse way guuldareysteen. gudaha magaala madaxeedka gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxaa ku sugan ciidamo badan oo taabacsan gudoomiyihii xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen.